12 sano ayaa laga joogaa maalinkii uu bilaabmay dagaalka Israa'iil ku gumaadayso shacabka ku nool Gaza. 27 Diseembar, Israa'iil ayaa qaaday mid ka mid ah weeraradii ugu xumaa kaasi oo ka dhacay Gaza. Weerarkaasi waxaa fuliyay diyaaradaha Israa'iil kuwaasi oo lagu soo farsameeyay gudaha wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka. Dagaalka waxa uu socday muddo 23 maalmood ah. Waxaa dagaalkaasi ku geeriyooday 1400 oo ay ku jiraan 410 caruur ah iyo 100 waayeelo ah. Sidoo kale dadka ku dhaawacmay ayaa kor u dhaafay 5400. Weerarkaasi waxaa ku burburay hanti ay ka mid yihiin 8000 oo guri. 250 ka mid ah 8000 ilaa iyo haatan lama dhisin sababo dhaqaale awgood. Haddaba si loo dhameystiro guryahaas waxaa loo baahan yahay dhaqaale gaaraya $8 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Cabdilatiif Qaanuuc oo ku hadlayay magaca dhaqdhaqaaqa Xamaas ayaa yiri shacabka reer Falastiin 12 sano ka hor waxa ay la kulmeen duqeyntii ugu xumeyd ee ay geystaan diyaaradaha Israa'iil tan iyo intii 1967 markaas oo shacabka reer Falastiin ay gumaad xun u geysteen diyaaradaha Israa'iil. Tobaneeyo reer Falastiin ah ayaa weeraradii dhacay 12 sano ka hor ugu falceliyay baraha bulshada kaas oo loogu magac daray dagaalkii Furqaan ama Xarbul Furqaan. Mid ka mid ah dadka ka falceliyay ayaa yiri maanta oo Axad waxaan xusaynaa 12 sano guuradii ka soo wareegatay maalinkii sida xun ay diyaaradaha Israa'iil u gumaadeen shacabka reer Falastiin ee ku nool Mareykanka Gaza. Waan xasuustaa maalinkaasi waxaan galayay imtixaan maadada Carabiga ah markii aan soo dhameeyay waxaa bilowday duqeynta diyaaradaha. Shakhsi kale oo isna bartiisa Twitter-ka ku soo qoray ayaa yiri 12 sano kadib qaar ka mid ah khiyaanoolayaasha ayaa dhahaya dawladdan gumaysiga ahi waa dawlad nabadeed. Haddaba haddii aad hilmaanteen ama aad ishilmaamsiinaysaan ogaada jiil ayaan hilmaamin. Falastiin ha noolaato iyadoo xur ah, ceebna waxay u sugnaatay kuwii u sacbatumay Israa'iil. Shakhsi kale ayaa isna qoray dagaallo waaweyn oo dhiig badan ku daatay ayaa wali ka socda Gaza. Goobtan yar waxa ay diiday inay isdhiibto iyadoo ku samraysa weerarada Sahyuuniyadda. Wasaaradda Amniga Gudaha ee Falastiin ayaa soo bandhigtay sawirro lagu xusuusanayo dadkii ku naf waayay dhacdadaasi. Sidoo kale booliska ayaa xabado kor u ridaya kuwaasi oo lagu maamuusay dadkii ku shahiiday weerarkaasi arxan darrada ah ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil. Haddaba nasiib darro 12 sano kadib Israa'iil waxaa xiriirka caadi ahaanshiyaha la yeeshay 4 wadan oo dhammaantood Carab ah waxayna kala yihiin Imaaraadka Carabta, Bahrayn, Suudaan iyo Morocco. Haddaba maxaa dan u ah dadka reer Falastiin kuwaasi oo ku seexda weeraro kuna soo waagbareysto.